بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibaan ka hore u soo aragteenba casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidaad u arki lahayd message-yada laga daleedo WhatsApp-ka. Tusaale qof aad message ku soo diray WhatsApp-ka, message-kii ka daleedo adigoon arkin. Adigoon iswaali message-kiisa qofkaas waa arki kartaa. Muuqaalkan casharkaas aan kula wadaagaa soo dhawaada. Marka ugu horeysa waxaa u baahan tahay inaad soo degto application loo yaqaano Notisafe. Waxaana kala soo degaynaa halka application laga soo dego Play Store-ka. Play Store markaa gashid qaybta sare waxaa ku qoraysaa Notisafe. haddii aad qoraalka arkeenin shaashada ayaan kugu soo qoray eedo weyn ah. Notisafe markaa ku qorto kadib waxaa leedahay search ama calaamada go. marka calaamada start kadib waxaa ku jeedaa Notisafe oo ku soo qabtay aniga hore oo la degay laakiin ma siinin permission haddaan permission siinaa saa oo la degay way open ayaan leeyahay. noocan ku saaro open dheh calaamadan taabo si hore u sii socotid calaamadan taabo saa u sii socotid allow dheh permission siinuna yani kadib calaamadan taabo next dheh next marka dhahdo kadib wuxuu ku soo saarayaa shaashadan halka Notisafe ay qoran tahay able ka dhig go disable able ka dhig kadib waxaa leedahay allow marka dhahdo kadib waxaa sameynaysaa calaamada yarista back taabo kadib wuxuu ku soo qoraa allow dheh kadib hadda waxaan sameynay permission aan sameynay calaamadan sax taabo next dheh next marka dhahdo kadib waxaa laga rabaa dhammaan applicationada inaad disable ka dhigtid saa u dhigtid midka sare taabo fur hadan xir kulli wada xirmaan saa u jeedid marka xirmaan kadib waxaa sameynay marka permissionka waa ogolaanay calaamadaas ka taabo permissionkii waa ogolaanay waxaa rabnaa marka applicationka inuu shaqeynayo in kale inuu sax yahay in kale inaan ogaano marka WhatsApp kan tagaa aniga waxaa igu hada laba WhatsApp kan sare waa WhatsApp-kiga caadiga kan waa business marka labada ayaan isku muraajacinayna midka business-ka wax ka direynaa kan kale u direynaa waa daleedina haddana waa fiirinaynaa si uu haddii wax sax yihiin haddii qalad yihiin WhatsApp business-ka ayaan soo furnaynaa ciwaanka sare Moja Yangu ku qoran ayaan u direynaa qoraalkeena okay ciwaanka sare fur ama kale friends-kaaga kan ugu horeeya furo kadib waxaa qoraysaa halka hoose salaan camal ku qor tusaale meeshaan ku qoraa hadda assalaamu calaykum hooyo sidee tahay xaaladda caafimaad markaan qor kadib waa diraa waxaan ku tusaa marka WhatsApp-kaas inuu gaari in kale WhatsApp kalaan soo furnaynaa in xogtan ay gaartay in kalaan soo fiirinaynaa si aan ku yani waxaan rabaa xaqiiqo loo baahan dadka in loo gudbiyo WhatsApp aan tago barnaamijkeedu waa kana fur hooyo macaan waa kana message-ka oo iga imaado hooyo macaan aan fiir waa kana assalaamu calaykum hooyo see tahay xaaladda caafimaad WhatsApp-ka business-ka ka soo tiri kaas iskuma haysano okay aan baxna marka aan deleedno WhatsApp-ka business-ka imaana message-kan ayaan deleedaa message-kan delete dheh waxaan ka deleedaa marka for everyone qofka ani iga delete qofka u dirna ka delete marka waxaa u jeedaa message-kii in la deleeday marka waxaan aadaynaa application-kii aan la soo degnay Notisafe-ka ayaan aadaynaa waa kana shaashadu saaran yahay fur Notisafe markaan furno waxaan rabnaa marka message-ka aan deleednay inaan meesha ka aragna ayaan u baahannahay iskala deleeday meesha ka arkaysaa marka soo furno kadib waa kana dadka ku sheekay dhan meeshan waa soo galayaan oo WhatsApp-ka qaybta sare maamaana u qoran aniga hooyo macaan fur waa kana marka kan hore waa mid aan ku broweynay intaan barnaamijkan guda gelin kor kan dambe waa kana hooyo xaaladda caafimaadka waa meeshan ka soo sameynay marka qof markuu ka deleedo Notisafe haduu kugu jiro isla markii Notisafe-kaaga imaw WhatsApp-ka wixii lagu soo diray wixii laga deleeday asaa meesha ka arkaysaa wixii qoraal ee meesha ka arkaysaa marka waxaa sameyn kartaa sidoo kale Notisafe-ka wixii lagu soo diray Gmail-ka ku kaydsan kartaa haduu si qofka kale kugu inkirin saddexdan calaamad taabo ee sare kadib waxaad ka xulinaysaa qaybta hoose export ay qoran tahay wixii lagu soo diray ee laga daleeday qofka dhuuso kugu inkirin Gmail-ka ku kaydsan kartaa sababtoo ay tahay ka bax karaa waxaan Notisafe naftiisu ka daleed ma karaa marka waxaan ku save gareysnaynaa Gmail-keena aan ku save gareysnaynaa drive-ka marka ku save gareystid kadib yani faa'iido u leeyahay waxa marka save gareysnays qof wax kugu qabsaday wixii uu ka daleeday aad naftirka Notisafe-ku ka daleedmay hadhow Gmail-ka waxa uu aadi kartaa waa kana safe dimension Gmail-ka ay ku jiraan xogta WhatsApp-ka hadda lagu soo dirdhan Gmail-ka asaas ku kaydsamay Notisafe wixii ku saabsanaa waa barbeerno sameynaa hadda Gmail-ka uu ku xareynaa wuxuu leeyahay waxaad xareynaysaa hal file hal file ayaa uploading ku socdo oo Gmail-kaaga tagay marka waa intaas fadlan janaalka ku cusubta subscribe saar lana wadaag asxaabtaada oo u share garay muuqaalka hadii aad ka heshay like saar inta aan ku kulmayno muuqaalka xigo waxa idinkaga tagayaa waqtigiina ka faa'iideysta